wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo deeq raashin in iska jara burburi sokori salinay bayadeersiday dadka danyarta ee ka jara kaamanka kiyaala magaalada baydhabo deeqdaso iyo kukoyti islamic relief iyo mayba ku faa'iideysadeen ku dhawaad 1200 qoys oo danyar oo ka jara kaamanka kiyaala magaalada baydhabo deeqiibinta markii dhamaatay iyo mayba warbaahinta la hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed liibaan sheekh shu'aib لكن ما إلا نعمل كردي من بحناي ما يدير ما يواها عن هذا محلك إنتويد تدوينها فرقون قوس أو ما يراي جاجيسن كي ودن كجرت بايدن كوين ما يواها ما يراي جاجيسن أي ولسي أنتكم قوس كم ده هدي أو إسلام غريب كذي تدي كلنا ما يقبلها نام سقط سلامنا إنت تشوفه الجيران صوم وقتي خراب كبيول وراه بجري بسكوت كل عام بجري ميلو ولا فوق ما يجري همين هو إسكو بري كلا كوري لكن حتى كمسلمين وصومان هذه صومان نبي أفرج جوتة فضايا أو ما لراي رمبان هم صوم كورا لكن ما يلا ما لراي هذا كجارك هي أتكست أو دير كرتك لانتي من دراسة ما لراي يلا والقوة مطول يقول كدولة أهم دولة فدرالك مانك باقانا بيدوي فيديوهاي وزارة الجرجارك فدرالك يبقى المليون شباب لنا تتكلم باباها هي دير اللي سكفيرني من رحمتي عدسي أنا ما يوهم الإسلام يدريكم كمان دير زايد لانكستركم مش دير زي ما لراي ما له كذا بايد متيار saas oo kale dawladda walaalo ee Turkiga iyo deeq raashin ay bayadeersiday dadka danyarta ka jara kaamanka kiyaala magaalada Baydhabo taasoo yoona ku faa'iideysadeen dadan baahana intii gargaar noocan ee la deersay gargaarkaas oo in iska jari bur bariis saliid sokor timir iyo waliba aana boora xasan siid ali oo hay wakiilka lahan wakiiladii raashin qiibintan ku dheedigay magaalada Baydhabo iyo warbaahintan kooreyntii la hadalay sallallahu salaam ala madana nabiya baada eedi baan ka mahadnaqaanay maamulka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Antony Broad koonfur galbeed Soomaaliya ustaad diiban insha Allah mashruucu way bahadibtay hay'ad oo la magacaabo Aziz Maxamed Hudaay waqfa oo Turki la kaleeyay wayna han wakiilatay mu'assasada Rayaan oo ka taala Xamar insha Allah Baydhabo barnaamijka lagu qabsay 450 caa'ila oo waliba kaambooyinka jaray inta la qabooday marka hadda insha Allah way baan ka mahadnaqaanay maamulka oo geed inta oo fulin way baan ka dhawaay ustaad diiban wasaaradda inay jaray Sharif Aadan Macalin Isaaq oo hay maamulaha guud ee lahan wakiilada raashinka iyo siinaysa kale dareenjay ku warbiyo oo sheegay in raashinka sadilaan ka tala galiyo deersiyeen dadka danyarta ee ka jara kaamanka kiyaala magaalada Baydhabo mishkan oo maartay lanka taakulayay dad ilaa iyo inay ku dhow 500 qofood oo maartay geek raashin siyaasi hay'ad Turkiga oo la raw Aziz Maxamed Hudaaya iyagoo si fuliyaas barnaamijkaas mu'assasada Rayaan foundation oo fuliyaas intii aan kula qayb galay may baan ka farxad weyn runtii may waa dadka wala ka siiyahay dad oo may waa eedan tabaalaysan oo la ku shal xuli kaamamka oo ku xiraraysan magaalada Baydhabo oo dhamaantii oo dad oo ay danyare waayeelo iyo maartay dad oo aadolada iyo maartay dad oo danyare marka insha Allah ilaahay ka mahadsan in barnaamijkaas geedin intaam naqdo oo aan kula qayb galay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka deeqiibinta markii dhamaatay mayba warbaahinta la hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed liibaan sheekh shu'aib oo Baydhabo dadka ka dhiibahay oo mobile leeyahay celintii oo kale ay tahay umada iyada aan baahanta ilaa iyo 40 qoys oo barakacay ka jiraan magaalada Baydhabo daafooda iyo gudaha ka jiraan dad badan kale oo dhibaataysan oo meel host community xaafado ka jiraan marka may codsadaan ee ka wasaaradahan in meel ay walaalyogaan oo hadahnin sheeneen waliyar may ala tiradan hadda sheeneen in yo meel ay ki kana jiyaan dadki koonfur galbeed iyo ka dhow hayaan seedaan oo meel ay ummadda masaakiintan ameelan baabasan lang maqon dadka ma qanaado fadhida hadda galanta ka hayaan maasiin hay'adda iyo dalka Turkiga iyo dhamaantood ay raanayaan idan ma haysteen gargaarka oo ismaadeysay soo dhaws dadka masaakiinta oo ku barakacay beerasho abaarta gal mal deerna meel ay waqtiga misgaha goofadi qoobka dad u bedelanka oo isku sii noolado male markan in had si degdeg ah soonka laga jaro dadka muslimiinta dhamaantii oo mayba ku codsadaan in soonka laga jaro dad 40 qoys oo magaalada Harare jeedsan
ما إلى رأي ما يركض ما إلى رأي دكتي ولا هلا ما يركض إن قلنا للوالده ما إلى رأي دكتاس لان الله لكن غيري أنت لك جود جرب الله بركيسن رمضان يدولدو إسلامي ما يبيو غرغارن فدياينا دad ka danyarta ee muslimiinta ee meel walba yuroogan Soomaaliya ma bay qayb ku haytay meelo gargaarka la hadeersi iyadoo inta badan dawlado islaamiga iyo gargaarjo iyo deersi ayaan dadkan baahan intii la gargaar bil barakaysan Ramadaan Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo